wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa cashuur dhaaf u sameysay in ka badan 130 kamid ah gaadiidleyda ka howlgala gobolka Sanaag. Munaasabadii cashuur dhaafka loogu sameeyay gaadiidkan oo ka qabsoontay taliska ciidanka ilaalada cashuuraha bariga ee gobolka Sanaag ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo waliba mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee heer qaran iyo waliba taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha bariga ee Somaliland. waxaan ugu horeyntii halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay muhiimadda uu cashuur dhaafku ugu fadhiyay gaadiidkani agaasimaha waaxda kastamada ee wasaaradda maaliyadda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee heer gobol iyo heer qaran. aad baan ugu faraxsanahay magaranaysa cashuur dhaafkan la sameeyay anana diyaar baan nahay inaanu si dadka habsami ah hadhow habeen ugu shaqeyno si ay degdeg nooga tagaan oo aan u shaqeyno jimce. sida wasaaradda maaliyaddu cashuur dhaafka ugu soo sameysay inay iyaguna dadka gobolka Sanaag ayaguna huraan cashuurta oo maadaama ay dawladdeena wax kaga soo noqdeen iyaguna ay cashuurta halkeeda marshaan oo wadada ama kootarabaanka ay ka wacyi galiyaan haddii aanay bulshadu wax nala qabanin ama maaliyadda wasaaradda iyo booliska iyo dadkaba wax lala qaban oo bulshadu wax la qaban waxba ma qaban karno. Sanaag maadaama oo cashuur dhaafkii leedin soo sameeyay inaguna waxaad leenahay inaad cashuurta hurtaan. waxa weeye cashuur dhaafku waa xubin muhiim ah qofka ganacsada ee gaariga leh ama ku shaqaysanaya waa ikam u baaqday oo dhaqaalihiisa ka mid noqonaya. waan arinta hadaan nahay waxgaradkii gobolka mas'uuliyiintii gobolka cashuur dhaafka ee dawladdu bixisay waxaana nala joogo oo daah furi doona wasaaradda madaxdeedii agaasimihii kastamada ee Somaliland. intaa kadib runtii waxa farxadii ah anagoo maanta ku sugan kastamka magaalada Erigaawo inaanu daah furno cashuur dhaafkii gaadiidka loo sameeyay gobolka Sanaag. waxaan doonayaa maadaama cashuur dhaafka la sameeyay inuu gaadiidku sida ugu raasaha badan uga baxo goobta cashuurta. gaadiidka cashuur dhaafkii la sameeyay marka waa fayskan waa 130 gaari 70 gaari oo kala soo socdo laga yaabaa ilaa bisha 11keeda inay yimaadaan. marka waxaan rajaynayaa cid ka soo cashuur dhaafka la siiyay oo gobolka ku sugan ama meel kaleba ku sugan in ay soo doonato cashuur dhaafkeeda oo dhilay aanu ku dhicin. labada taliyo ka dhawaajiyay cashuurta ay bixinayaan dadku ee laga doonayo cashuuraha bariga markii hore lacag badan bay ahayd. wareegta wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda soo saaray wuu dhimay cashuurta wuxuu buuga iyo bileerka oo kaliya qofku iska bixinaya ha u fahminayaan lacag fara badan leedin ka doonaya marka cashuuraha bariga tagtaan. dhankoodana waxa halkaasi ka hadlay gaadiidadii loo sameeyay cashuur dhaafka. aad noo qabateen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cashuur dhaafkan aad dadweynaha loo sameeyay gaadiidkiisa ay dawladdu u sameysay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afka dadweynaha. marka xigana dawladda baa mahadsan madax iyo manjo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa noo sameysay cashuur dhaafka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. gabadhina waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Sanaag. waxaan ku bogaadinaynaa wasaaradda maaliyadda oo runtii tallaabo waxgala qaaday oo noo ogolaatay gaadiid badan oo cashuur dhaaf ah ugu deeqday gobolka Sanaag. waa mahadinaynaa wasiirka iyo wasaaraddiisana waa mahadnaqaynaa. annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu noqonno kuwii ka abaalguda. maanta waxay tahay farxad waayo intaasoo gaadiida oo maanta cashuur dhaafkii u soo baxay oo ahayd dhibaato weyn oo bulsho ahaan iyo maamul ahaanba noo haysatay. arrintani cashuur dhaafka lagu sameeyey wax dhayal isaga yimid maahayna waxay ahayd dawladdu markay daraasad fara badan ku samaysay iyadoo bulshadeeda u danaynaysa ay ogaatay dad badani inaanay awoodi karin inay wax cashuuraan. waxa gaadiidka maxaan ku dhahay koodarabaanka loo gelinaya uu magaalada u soo gali lahaana ay ahayd qofkii inuu awoodiba kari waayay inuu iska bixin karo maxaan ku dhahay cashuurtii. ilaahay baan ugu mahad celinaynaa. maxaan ku dhahay madaxweynaha qarankeena ugu mahad celinaynaa. wasiiradii iyo wasaaradihii ka soo shaqeeyay baan ugu mahad celinaynaa. marka waxaan leeyahay iyadana idinku dardaaraynaa khayr Allah idin siiye waa inaad Adnaan Cabdirashiid Ali telefishinka caalamiga ee Kalson TV Erigaawo.